fiiri siduu Ilaahay ugu wareejinayo madaxaaga madax dameer salaada dhexdeeda. Assalaamu calaykum daawadayaashayda qiimaha badanow. Qofka muslimka wuxuu ilaaliyaa inuu salaada ku guto dariiqo saxiix ah oo khaalis u ah Ilaahay Azza wa Jalla si uu uga aqbalo Rabbigeena subxaanahu wa ta'aala. Rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Utukada sidii aad aragteen anigoo u tukanaya. Inaan u tukanno sidii uu u tukaday rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sidoo kale waxaa laga maarmaana rukuucda iyo sujuudda tasbiixda lagu aqrinayay iyo kuwaas qayrkood oo afcaashii iyo aqwaashii aan salaada looga maarmayn ah sidii ka timid rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam. Waxaan ku bari doonaa muuqaalkan dhexdiisa shay oo rasuulkeenu naga reebay in salaada dhexdeeda lagu sameeyo sallallahu alayhi wa sallam, kaasoo ay suuragal tahay in haddii aad sameydid madaxaaga loo wareejiyo madax dameer. laakiin intaan xalqadan dhammaystirin idin la wadaagin, waxaan idinka codsanayaa daawadayaashayda qiimaha badanow inaad channelkan aan khayraadka ku soo gudbino iyo waxyaalaha wanaagsan subscribe saartaan, gambaleelkana u furataan si ay idiin soo gaaraan muuqaalada faa'iidada badan halkan aan soo gelino. Muuqaalkana like saara, like to meel fog ayay muuqaalka gaarsiinaysaa, ayada ayaana sharaf u yeelaysay. Allah idan sharafay ku soo dhawaada muuqaalkii faahfaahsan. Nabiga ayaa sugay sallallahu alayhi wa sallam dariiqada loo fariisto salaada dhexdeeda, laakiin fadhiga ama jalsada la yiraahdo al-iqaa ayaa ah laba nooc ay bannaan tahay sharci ahaan in loo fariisto iyo nooc aysan bannaanayn sharci ahaan in loo fariisto. Nooca koowaad waa inuu qofku ku fariisto bariyihiisa asagoo taagaya gomodihiisa, labada lugood farahoodana u dhigaya qaybta maqaarka ah, gacmihiisana dhulka dhiganaya sida uu eygu u fariisto kale iyo qaar ka mid ah duurjoogta kaleba. Fadhiga noocaana ayaa ah mid ay karaahiyad tahay in loo fariisto, waxaana daliil u ah xadiiskii uu wariyay Anas ibn Malik radiyallahu anhu. wuxuu yiri rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Idaa rafacta raasaka min al-ardi fala taq'ud kama yaq'udu al-kalbu." Markii aad madaxaaga kor uga soo qaado sujuudda, ha u fariisan sida uu eygu u fariisto, ayuu yiri rasuulku. Sidoo kale xadiiskii ay wariday ummul mu'miniin Aisha radiyallahu anha wa an abiha, nabigeena sallallahu alayhi wa sallam kaana yakrahu an yaftarisha diraacihi iftiraasha subac. nabigu wuxuu nici jiray ama karaahiye ka ahaa agtiisa inuu dhudhumadiisa goglado sida ay u gogladaan dogaagu. wa kaana yaftarishu rijlahu al-yusra, wuxuuna goglo jiray lugtiisa bidixda ah, midigtana wuu taagi jiray. wayanhaa can caqabati shaydaan, waxaa loola jeedaa caqabatu shaydaan waa qaababka uu rasuulku nahiyey. nooca labaad oo bannaan oo la jideeyey rasuulkuna uuna amray waa inuu taago qofku gomodihiisa, nin iyo naag wuxuu raba ha ahaadee, sida marka uu sujuudayo uu u taago bariyihiisana markuu soo fariisto uu ku dejiyo gomodihiisa korkooda. fadhiga noocaana waxaa loo sunneeyaa labada sujuudood dhexdooda fadhiga ah. sidoo kale rasuulkeenu wuxuu reebay sallallahu alayhi wa sallam can sabqi al-imaami fi salaa, in imaamka salaadii lagala hormaro asagoo sujuudsan in madaxii laga soo hor qaado, ama inuu ma'muumku istaago imaamka ka hor iyo wixii la midaba. sida ku sugan saxiixul bukhaariga rahimahullahu ta'ala inuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam: "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himaar." kama baqaaya miya qofka imaamka hortiisa madaxa kor yeelaya inuu Ilaahay madaxiisa u bedelo madax dameer. waxaa ka mid ah qaladaadka kale oo uu ku dhaco qofka tukanaya inaysan sujuudiisu ahayn xibnihii toddobada ahaa oo la jideeyey, taasoo lagu sheegay rasuulka xadiiskiisii sallallahu alayhi wa sallam: "Umirtu an asjuda calaa 7 acdum." sidoo kale salaada dhexdeeda waxaa karaahiye ah inaad isku celido oo isku xabisto kaadidii. arrintaasna waa mid karaahiya, weliba waa mid la reebay oo aan bannaanayn. mana bannaana kaadidii iyo saxaradii iyo in la isku celiyo salaada dhexdeeda, maxaa yeelay waxay yareynayaan khushuucii salaada. wuxuu yiri rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Laa salaata bixadrati dacaam walaa wahuwa yuxaadithuhu al-akhbatha." salaadi ma jirto iyadoo la soo xaadiriyey cunno ama la isku celinayo akhbathkii oo loola jeedo kaadidii iyo saxaradii. waxaa jira arrimo kale oo ay suuragal tahay inay salaada buriyaan, sida in salaadii dhexdeeda lagu qoslo oo kale. qosolkuna salaada wuu burinayaa haddii uu la socdo cod. xalqadeena maanta intaas ayay ku eg tahay. ha hilmaaminina meesha gaduudan inaad madow ka dhigtiin, gambaleelkana u furatiin, muuqaalkana like saartiin. fi amaan illah.